السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودرين aad u xanuun badan marka qofkan dunida ugu jecelnahay uu inaga fogaado. Fogaanshahaasi ha ahaado geeri iyo gaabsiba, waxaanu hubaa in aysan sahlanayn ilaa wada qofkaasi aan jecelnahay. In habeen iyo dharaar dhexdooda aynu jecel kaga bogsanno waa arrin ma dhacda ah, maskaxdana ku hay in aysan dadku isku mid ku ahayn. dhibta u nugul caashiqa guulaysan waaya. xeelarayaasha cilmiga xiriirka bulshadu waxay ku taliyaan qof kasta oo waaya ruuxu jeclaa geeri iyo gaabsiba midkuu doonaba ku waaye inuu maro tallaabooyinkan. tallaabada koowaad oohinta, in qofku mararka qaarkood nafta u fasaxo in ay oohin ku cabirto culayska nafsiga ah ee ka qaaday jacaylka lagaga baxay ama lagu diiday. waxay naftu siisaa nafis dheeraad ah iyo inay aqbasho in qofka ay jeceshahay uusan diyaar u ahayn in uu la qaybsado dhibkan, sida awgeed ay xanuun badan ilowdo. qodobka labaad, heesaha iyo filimada. marar badan dadka xaaladan oo kale ku dhacda waxay miciin bidaan dhageysiga heesaha calacalka iyo daawashada filimada laga jelay xaaladda ay ku jiraan. waana run ah inay dhaymo u noqon karaan waxa ay dareemayaan. ugu yaraan daqiiqadaha uu daawanayo ama uu dhageysanayo wax badan uu ku raaxisto, laakiin khubarada cilmiga bulshadu waxa ay qireen in daawashada filimada iyo dhageysiga heesahani kaliya ay sii horinayso dareenka laabta qofka gubaya. qodobka saddexaad, jarista xiriirka. qofka xaaladan oo kale ku dhacda waxaa lagula taliyaa inuu jiro dhammaan xiriirada bulshada uu la leeyahay, ugu yaraan inuu waqti xadidan joojiyo. waana run inay tahay arrin aan hawl yareen, gaar ahaan marka qofka jacaylkaaga baxay ama kagu diida jacaylka uu yahay qof aad isku shaqo tihiin ama jaamacadda ama isku deegaan tihiin ama markay ehel yihiinba. qodobka afraad, xusuustirid. waxaa fiican in qofku iska fogeeyo ama ka takhasuso dhammaan sawirada, fariimaha, qoraalada iyo shay kasta oo xusuus jecel maskaxda dib ugu celin kara. qodobka kale ee shanaad, dib ugu naqo fikirkaaga. waxay khubarada cilmiga nafsiga ku taliyaan in qofka xaaladani oo kale ku dhacda inuu ku dadaalo inuu bedelo hanaanka uu u fikiro iyo inuu ku dadaalo in xusuustiisa ku riixo inay ka fikirto arrimo ka duwan kuwii ay marka hore ka fikiri jirtay, sida in hol cusub uu bilaabo, inuu safro ama inuu shaqo kale u wareego. qodobka ugu dambeeya ee lixaad wuxuu leeyahay naftaada waqti la qaado. xeelarayaashu waxay ku talinayaan in qofka xaalad jecel lagaga baxay ama lala qaadi waaya inuu ku dadaalo in naftiisa u sameeyo waqti gaar ah oo ay kaligeed isla joogto si uu dib ugu noqdo waxa ka qaldamay, si ay naftiisu arrimo nololeed u kala muujiso iyo in mustaqbalka waxa uu doonaya uu arrinteeda meel u saaro. intaas ayaa kusoo gabagabaynayna barnaamijkeena. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.